بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. أسعدتني قليلا soo dhawaad. Waxaan rajaynayaa inaad fiicantihiin. Isku laabasho wanaagsan. Noqo soo saare ka bax xanuunka daawashada oo bilow saameynta mawduucyadiisa leh. Sheekada Khadiijo. Ka tegidda daawashada ilaa noqoshada soo saare. Khadiijo waxay ahayd gabar dhalinyaro ah taasoo maalin walba saacado fara badan ku qaadan jirtay daawashada TikTok-ga iyo Shorts-ka YouTube-ka. Waxay jecleed inay daawato mawduucyo kala duwan, sheekooyin farxad leh, qosolka iyo madadaalada, laakiinse gudaheeda qanacsanaan ma dareemeynin. maalin iyadoo quraan akrinaysa ayay ku dhacday aayad taasoo dhahaysa waqul icmaluu fasayara allahu camalakum. Ku dheh nebiyow camal fala, ilaahay wuxuu arki doonaa camaladiina. Waxay isweydiisay waran haddii aan joojiyo daawashada oo aan bilaabo samaynta. Sanad gudihiis khadiija waxay bilowday kanaalkeeda youtube-ka. Sanadooyin yar kadib waxay isku beddeshay soo saare, hogaamiso iyo ilbax. Tani waa xaqiiqada markaad ka baxdo daawashada oo aad bilowdo soo saaridda. Taasi waa sheekada gabdho badan oo youtuberada soomaaliyeed ka mid ah. hadda sida platformyada TikTok iyo YouTube-ka waxay ogol yihiin qof walba inuu wadaago fikradiisa ama uu soo share gareeyo. Uma baahnid mashiin ee waxaad u baahan tahay telefoon iyo xiise aad u qabtid inaad noqotid sameeye. Sababaha ay noqoshada muuqaal sameeye isku bedeli doonto noloshaada. Waxaad helaysaa xakameyn nafsadeed. Halkii aad noqon lahayd mid algorithm uu hogaamiyo, adiga ayaa algorithm-ka saameynaya. Waxaad ka baran kartaa xirfado, qorista, editing-ka, public speaking-ka, kalsoonida. Kuwaasi ma ahan xirfado keliya ee waa xirfado nololeed. Waxaad daawadayaashaada uga tegi kartaa dhaxal. Mawduucyadaada ay waxay ku noqon karaan sadaqa jaariya. Dhaqamada muslimka ee saameeya dhab ah. Ku bilow bismillaah. Mashruuc kastoo aad bilaabaysa. Raadi aqoonta marka hore. Noqo joogteeye adag. Rasuulka wuxuu yidhi camalka midka loogu jecel yahay waa kan la joogteeya oo maalin kasta lagu celceliyo. Haba yaraadee. Ka tegidda daawashada ilaa noqoshada soo saare waa wax cabsi leh marka ugu horeysa. Markii aad isoo bandhigto ama wax iska soo duubto public ka dhigto. maxaa haddii ay kugu qoslaan waxay dhibaato leedahay haddii lagu daawanin. Laakiin xasuusnow, rabbi wuxuu u jeedaa ulajeedadaada iyo hadafkaad ka leedahay. Xitaa haddii uu qof keliya ka faa'iidaysto, in allaala intii qof ka faa'iidaystay ajirkooda ayaad leedahay. balse cagsigana waa sidoo kale. Haddii aad xumaan aad u niyeysatay ama waqti niyadaada aysan khaalis ahayn, dembi ayaa kaa soo gaaraya. mar waliba ikhlaas inaad ahayd ayaa fiican. mar waliba ikhlaas ahaw. gebagabadii waa maxay dhaxalkaaga? xayraad ah oo aad ka tagi kartaa. Mawduuc kasta oo aad samaysid waa sadaqo digital ah oo ajarkeedu kuu socdo. Waa saameyn wanaagsan oo ku sii soconaysa noloshaada. Marka isweydii, sanadaha soo socda ma doonaysaa in lagu xasuusto keliya qof ahaa daawade ama qof noloshiisa wax ka bedelay dadkana saameyn ku yeesha? xasuus noocaad rabtaa inaad reebto? Waa maxay tallaabada ugu horeysa aad qaadi doontid? commentii ku soo qor. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. wax walbood rabtid inaad samaysid, niyadaada khaalis ka dhig, ilaahay tala saaro. sanadaha soo socda ama waqtiyada soo socda adiga ayaa noqon kara saameeyaha dhabta ah, ninka ugu saameynta badan ama ugu soo jiidashada leh ee muuqaal sameeye ee noqda. wax walba fikir ayay ka bilowdaan. fikirka haddaad haysatid, ficilka bilow. natiijadu waqti ay qaadanaysaa, sabar iyo adkaysi ayay u baahan tahay, laakiin waxaan hubaa inay imaan doonto. adigu ha isdhiganin. naftaada wax u qabso, noloshaadana wax u qabso. thank you very much. maca salaama.